siyaasi maxamuud cali saleebaan ramaax oo ka tirsan saraakiisha sarsare xisbiga mucaaradka ucud oo ku sugan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada burco ayaa wuxuu ka warbixiyay qaybo ka mid ah gobolka togdheer oo ay ka jirtay muddooyinkii u dambeeyay abaar baahsan isagoo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay furto seeraha gobolka togdheer ee magaalada burco maanta waxa ka taagan degmada burco abaar baahsan baa ka taagan dadkii laba garbu kala go'ay gar wuxuu qabtay hawd oo roobabkii ugu dambeeyay deyrtu ay ka deeyeen badna wuxuu qabtay waqooyi oo isna lagu raagayna durba uu kulaylkii bilaabmi doono bishii soo socota 15keeda wax alle wixii isqaadi kari waayey waxay ku hadheen eeriyadii ilaahay abaar xun ay naga hayee dhulku caws waaleeyey meelaha qaarkood biyo la'aan baahsan baa ka taagan meelaha qaarkood cawsna male biyana male sidaa daraaddeed waxa aan ugu baaqayaa wasaaradda deegaanka inay degdeg u furto seerihii gobolka togdheer waayo waa xilligii loogu talagalay inay xooluhu ku baxsadaan seerihii arooriyaad iyo bancawl waa in si dhaqsaa oo maalin iyo beri aan qaadanaynin waxaan soo maray jiidda waxaa jira dad aan isqaadi karaynin dad meherado iyo xoolo ku haystay tuulooyinka dushooda oo aan yarayn waxa isqaadi karaa dadka waa wax yar dadku xoolii way kala xawawareen geel wuu ka tegey aroori waa in si degdega loo furaa maamulka gobolka iyo runtii waa soo maray maanta waaweynay inay ka hadlaan iyagay ahayd waxaa leeyahay iyaguna waa ka warhayaa dadkeennii baa ku la'aanaya ma markay xooluhu dhimanayaan baanu sugaynaa baan ku leeyahay weliba wasiirka wasaaradda deegaanka oo si adag uga hadlaayo xoolaha iyo dadka waxaynu u xidhnay seeraha u xidhnay innagoo aan tacabgelinin oo ay ahayd in cagafyo la geliyo loo beero xoolaha geedo innagoo aan qabanin haddana maanta geedahay ku baxsadaan way ku yaallaan wixii xoolo deegaanadaa ku hadhaye in la furo oo laga qaado fiigii yaraa ee laga qaadi jiray labada bilood ee ka hadhay guga ka hadhay haddii aan la yidhi waa siciid cali cusmaan xaalays iyo cabdiamiin cabdilaahi telefishinka caalamiga gobonimo magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer